daawadayaal ku soo dhawaada maanta iyo mid ka mid ah filimaantii aan idinkugu talagalnay waxaa lagu magacaabaa filimka maanta aan idiin soo diyaarinay Shooting Star waa filim Korean ah waxa uuna ka hadlayaa gabar ka imaanaysa baadiyaha taa oo ay wada jeclaanayaan wiil ka mid ah ardayda galaaskeeda iyo waliba mid ka mid ah macallimiinta iskuulka haddaba kay raaci doontaa ma macalinkeeda mise wiil kala dhigta fasalka Zumi waxa ay u soo safraysaa magaalo ka duwan magaaladii ay ku nooleed in muddo ah kadib markii waalidiinteeda ay u safreen wadanka dibadiisa Zumi waxa ay soo aadaysaa adeerkeed si halka uu joogo ay wax uga barato adeerkeed halkaas waxa uu ku leeyahay maqaayad Zumi waxa ay wadataa ciwaanka guriga uu ka degan yahay adeerkeed magaalada waxa ayna weydiinaysaa dadka wadada uga hor imaanaya iyadoo ku dhahaysa ma taqaana ciwaankan halka uu ku yaalo iyaguna waxa ay ku oranayaan ma naqaano oo halkan waan ku cusubnahay aad ay u jahawareeraysaa waxa ay fariisanaysaa meel ay geeda ka baxayaan halkaas oo ay doonayso in ay ku cuntayso waxa ay kala soo bixaysaa boorsada ay wadato cunto yar oo ay wadato xusuus gaaban ayay galaysaa in muddo ah kadibna halkaa waxa ay ku arkaysaa hilaac ka imaanaya cirka ka oo tilmaamaya jihada uu ka xiga gurigeeda waxayna soo xasuusanaysaa mar ay gurigeeda ka dhuntay yaraanteedii kolkaas oo uu hilaacaas hagay kadibna gurigeedii geeyey haatana waxa ay niyeysanaysaa in gurigii ay heli doonto farxad darteed ayay miir daboolmaysaa iyada oo ku dhacaysa dhulka kadibna halkaa waxaa ka soo qaadaya adeerkeed oo uu geenayo maqaayadii uu ku lahaa magaalada in cabaara kadib waxa ay la soo toosaysaa iyadoo garbaheeda fadhiyaan adeerkeed iyo wiil kale markii ay soo naaxdo waxa ay la yaabaysaa halka ay joogto iyo weliba dadkan ku hareeraysan markii ay heshay adeerkeed aad ay u faraxday waxayna halkaas ku barteen wiilkan lagu magacaabo Shimu waxa uuna ku oranayaa halkan ayaan ka shaqeeyaa sidoo kalena waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta ka shaqeysa iskuulada deegaanka maalinkii xigtay waxa la geeyay iskuulkii kadibna halkaa waxa ay ku aragtay wiilkii Shimu ay isku baranayeen maqaayadii adeerkeed aad ayayna ula yaabtay macallinkii ayaa ku soo dhaweeyay dugsigeedan cusub ardayda ayaa la baray guud ahaantood waxaana loo sheegay ardaydan inay ka mid tahay ardayda ku soo birtay iskuulka loona baahan yahay in ay soo dhaweeyaan waxa ay la fariisanaysaa arday loo magacaabo Nuuro kaas oo ah arday xirxiran aan la hadlin gabdhaha isla markaana xishood badan Zumi markii la gaaray xilligii breega waxa ay cuntadeeda u soo qaadatay meel kore oo iskuulka halkaas oo ay doonaysay in ay nasiino ku qaadato isla markaana cuntadeeda ku cunto aad ayaan u faraxsan tahay halkaas oo ay dhulka si aad u galangalanayso macallinkii Shimu ayaa halkaas ugu imaanaya isaga oo weydiinaya maalintii koowaad ee iskuulka ay timid iyo waxa ay dareemayso iyo sidoo kale waxa ay kala kulantay ardadii iskuulka iyadana waxa ay dhahaysaa uu iska fiicnaa balse weli way u adag tahay in la qabsado iskuulka iyo jawigiisan cusub isaguna waxa uu ku dhahayaa tani waxa sabab u ah bila saaxiib inaad tahay oo ardadii oo dhan laba ay saaxiib u yihiin adigana laga doonayo inaad yeelato saaxiib gaar ah halkan ma ahan iskuulkaagii hore mana garanaysid ardadani Shimu oo ah macallinka ardaydan aad ayuu u dhiirigelinayaa inaysan isdhiibin isla markaana dadaalkeedii laba jibaarto markii ay u soo dhamaadeen xiisadaha Zumi waxa ay la hadlaysaa ardaygii la fadhiyay ee Nuuro waxa ayna ku oranaysaa waan kaaga mahad celinayaa sidii wanaagsaneed aad ii soo dhaweysay maalintii koowaad ee galaaskeyga isla markaana buugagteedii la shargaraysay waxayna ka codsanaysaa in ay saaxiib la noqoto isla markaana ay noqdaan laba qof oo isku dhow isla markaana wadaaga wax walba oo iskuulka quseeya ardaygan waa arday necab in gabdhuhu u soo dhawaadaan isla markaana korkiisa ay taabtaan iyadana kolkii ay taabatay wajigiisa waxa ay ogaatay in uu gaduutay wajigiisa waxa uu Nuuro ku dhahayaa ha u sheegin saaxiibtinimadeena cid kale iyo guud ahaan ardada dhigata galaaska waxa uu sidoo kale weydiinayaa Nuuro maxaad iga soo dhex dooratay ardada galaaska dhigata dhamaantood oo aad anigu u jeclaatay inaan kula noqdo saaxiib iyadana waxay oranaysaa waxaan nahay isku kursi waxaad iiga dhowdahay dhammaan ardada kale ee galaaskii la fadhisa xilliga break time-kana cuntada waynu wada cuni karnaa Nuuro waa uu aqbalay saaxiibtinimada gabadhani waxa uuna u sameynayaa soo dhaweyn weyn intaa kadib maalintii xigtay waxa ay isku dayaysaa gabadhani
inay la hadasho Nuura, isaguna wuu iska dhagatirayaa. waxa ayna ku dhufanaysaa boorsadii ay wadatay si uu ula hadlo. waxa ayna ku oranaysaa, haddii aan gacanteeda kugu dhufto waan ogahay wejigaaga waa uu isbedelayaa, wuuna gaduudanayaa, sidaa darteed ayaan boorsadan kugu dhuftay. isaguna raaligelin ayuu ka bixinayaa inuusan la hadlin. waxa uuna ku dhahayaa, mararka xiga waan kula hadli doonaa. iyagoo si wada jira u soo galaya galaaska, dhammaan ardadii iskuulka ayaa si la yaab leh u soo wada eegaya labadooda xilligii ay soo galayeen galaaska, maadaama isaga aan looga baran in uu gabar la hadlo ama uu la socdo. intaa kadib waxa uu imaanaya gabar kale oo galaas kala dhigata, waxayna ka dalbanaysaa in gruubkoodan gaarka ah ay ku soo biirto si mar walba ay wada shaqeeyaan waxbarashadooda xilliga bareegana ay wada cunteeyaan si nolosheeda horumar u gaarto, isla markaana iyada ay u caawiyaan. Zumu si dhaqsi ayay iyadana u aqbalaysaa arrinka, laakiin Nuura wuu iska dhagatirayaa oo lama hadlayo Yuka. ardada isku fasalka yihiin ayaa dhammaantood maalin u wada baxaya dalxiis. Yuka waxa ay dareemaysaa in mar walba uu ka agdhawaanayo Zuma iyadoo halkaas ka masiirsan. waxa ayna go'aan ku gaaraysaa in labadoodu ay kala fogeyso isla markaana kala dirto. waxayna Zumi u diraysaa keenta dhexdeeda si ay uga soo qaado xargo si ay ugu xiraan alaabaha ay wataan. Zumi waa iska cararaysaa, waxaana arkayaa Nuuro in ay Zumu meel fog u socoto, laakiin nasiib xumo keent waa ay ku dhex dhumaysaa, mana garanayso waddada ay ka baxayso. waxa ay isku dayaysaa inay asxaabteedii kala wacdo oo ay u sheegto inay luusan tahay, balse nasiib xumo keenta kama shaqaynayo teleefoonka ay sidato. sikadiisa waxa uu imaanayaa Nuuro oo in muddo ah raadinayay. waxa uuna ku oranayaa, aniga ayaa ku celinaya oo ku geynaya halkii aynu ka nimid ee warwalka iyo walbahaarkaba iska daa. Zumi oo orata inay u soo dhawaato ayaa ka dhacaysa goobtii ay fuushay, waxaana soo qabtay Nuura iyada oo sii liicaysa. waxayna ku oranaysaa, maxaad ii qabatay? waa adiga aad ka xishoon jirtay gabdhaha. isaguna waxa uu ku yidhi, markii xaaladaha noocan oo kale la joogo lagama xishoodo arrimahan. waxaa yimid roob aad u xooggan, waxay dareemaysay qarqaryo iyo dhaxan fara badan. Nuuro ayaa siiyey jaakadkiisa, daal fara badan ayay dareemaysaa, laabtiisa ayayna ku seexatay. markii uu roobku joogsado, Nuuro waxa uu isku dayayaa inuu qaado Zumi si uu ugu celiyo dugsiga, laakiin durba waxaa meesha imaanaya macalinkeedii Shimo oo aad u raadinayay. isaga ayaana soo qaaday. kadib markii ay soo kacday, waxa ay aragtay inay jiifto qol halkaas uu ag taagan yahay macalinkeedii. kadib waxa uu ku oranayaa, qalad weyn ayay ahayd inaad meeshaas keenta gasho. waxayna ku oranaysaa, waxa aan ka doonay xargo. laakiin waxay ogaanaysaa Simo in ay Yuka been u sheegtay oo aanay halkaas xarka oolin. waxayna halkaa ugu dirtay si ay u kala fogeyso Nuura iyo Zumu. waxayna intaa kadib u tagtay Yuko si ay ugala hadasho sababta ay ugu dirtay halkaas keenta ah. miyaynan saaxiibo ahayn? maxaad halkaas iigu dirtay? Yuko ayaa ku jeestay Zumu, waxayna ku oranaysaa, anigu gabar reer baadiye ah oo sidaadoo kale ah lagama yaabo inaan saaxiib la noqdo. Zumu aad ay u xanaaqday, waxayna ku dhufatay qalin ay gacanta ku haysatay. waa ay isdagaaleen, gacanaha ayay isla galeen, iyaga oo midda kale isku dayaysa in ay ku xoog badiso. waxa ay ku oranaysaa, waxaad tahay gabar reer baadiye ah, iskama kay celin kartid. ardadii kale ee galaaska la dhiganaysay ayaa si lama filaan ah galaaska ugu soo galay iyaga oo diriraya. Zumu ayaa ku tiri, waxa aan sameynaynay exercise. Yuki aad ayay u yaabtay kadib markii beentaa Zumu sheegtay. beentaa awgeed waxa aan noqonaynaa saaxiibo. haddii aad doonayso inaan kaa caawiyo sidii aad Nuura saaxiib ula noqon lahayd, labiskan aad gashan tahay ee reer baadiyaha iska soo bedel. Zumu waxa ay tagaysaa dugsiga si ay u soo bedasho dharkii ay wadatay iyo dhammaan isteelkeedii. waxa ay la kulmaysaa Yuko iyada oo soo wadaysa. waxa ayna u samaynaysaa qurxin jirka ah iyo timaha ah. waxa ayna dhahaysaa, waxaan ku soo iloobay galaaska moobilkeedii. waxayna dib u gashay fasalkii. waxaa si kadiisa fasalka ugu soo galay macalinkeedii Shimo, kaasoo aad ula yaabay isteelka cusub ee Zumu. maalintii xigtay waxa ay timid kafateeriyadii adeerkeed, waxayna halkaa kula kulantay macalinkeedii Shimo. waxa ay ku oranaysaa, in mar walba inaan agtaada joogo aad ayaan ugu faraxsanahay, mar walba waxaan ahay garabkaaga. macalinkii waxa uu ku oranayaa, anigana sidoo kale. maalintii kale markii ay Zumu tagtay iskuulka, ardadii ayaa waxa ay ku dhaheen, waan ognahay inaad jeceshahay macalinka. aaday u naxday, way murugootay in arrinkeedii ardadii ogaadeen. waxayna weydiinaysaa sida ay ku ogaadeen in iyada iyo macalinka ay jecel yihiin. waxaa loogu jawaabay, dhammaan ardadu ay ka warqabaan arrinkiinan. waxaa la gaaray xilligii loo dabaaldegayay ciidooda Krismaska. waxay u diyaarinaysaa macalinkeeda hadiyad si ay u siiso maalinka, balse macalinka maalintaa ma imaanayo. waxay u dirtay message si ay u sheegto in uu yimaado xafladda oo ay halkaas ku guddoonsii doonto abaalmarin qaali ah.
isaguna waxa uu ku yidhi shaqo badan ayaa ii taallo ma awoodo inaan imaado. aad ay ugu carootay halkaas. guud ahaan waxay isaga tagtay xafladda, balse waxay aragtay Nuura oo soo socda. waxa uuna ka codsanayaa inuu soo raaco si ay iskula aadaan xaflad kale oo ka wanaagsan mid ay hadda maanta joogaan, halkaas oo ay ku dhiganayaan dabaaldega ciidda Christmaska. waxa ay hoos kula hadashay oo ay u sheegtay inay maanta tahay maalinteedii dhalashada. halkaasna waxaa maqlay hadalkeedii hoos ay isugu sheegaysay. Nuura waxa uuna siinayaa cimaamadiisa si uu u farxiyo dabaaldega maalinteeda dhalashada. waxaa free message u soo diray macalinkeedii si ay ugu yimaado maqaayadii ay ku sheegaysan jireen. si degdeg ah ayay halkaa u aaday si ay ula kulanto macalinka. waxay halkaa guddoonsiisay hadiyadii ay u siday macalinka, isaguna halkaa waxa uu ku siiyey 2 tigidh si ay u tagaan beerta. waxa ay si wada jir ah u aadeen beerta malayga si ay nasiino iyo dulxiis uga soo qaataan halkaasi. balse Zumo adeerkeed ayaa arkaya macalinka iyo Zumo oo wada socda. kadib adeerkeed oo yaaban waxa uu la hadlayaa macalin Shimo, waxa uuna ka codsanayaa inuu la kulmo. kadibna waxa uu ku oranayaa uma soo dhawaan kartid gabarteeda mar dambe, waa arin cayb ah, kana xisho arinkaasi. waxaa tahay macalinkeeda, sidoo kalena waxaa tahay saaxiibka adeerkeed. aniga ayaa hadda ka mas'uulaha gabadhan. isaguna waxa uu ka ballan qaaday inuusan mar dambe ka ag dhawaan doonin gabadhaasi. Zumo maalintii xigtay waxa ay go'aan ku gaartay in macalinkeeda Shimo ay u sheegato jaceylkeeda. isaguna waa uu la soo hadlay, waxa uuna ku yiri waxa aan doonayaa inaan kula hadlo. iyaduna waxa ay tiri anba waxa aan doonayaa inaan kula hadlo oo aan wax ku sheego. Zumo oo aad u faraxsan ayaa ku oranaysa waan ku jecelahay, waan ka helay. isaguna waxa uu ku oranayaa taasi ma dhici karto, lagamana yaabo, waayo waxaan ahay macalinkaada. waxa uu ka codsanayaa in mowduucaasi guud ahaantiisba halkaas ay isaga soo xirto, mar dambana aysan furin, halkaasna ay ku ilowdo. intaasi kadib waxa ay u tagaysaa saaxiibkeed Nuuro, waxayna u sheekeynaysaa arrin ka dhacay maanta. isaga ayaa xoog hab u siinaya, waxa uuna ku oranayaa waxa ay ahayd inaad anigu u jeclaato halkii aad jeclaan lahayd macalinkaaga. waxaa arkaya arrinka Yuko oo ah arday la dhigata galaaska. aad ay uga caroonaysaa markii ay aragtay Nuura oo hab siinaya Zumo. Yuko waxa ay jeceshahay wiilka lagu magacaabo Nuura. iyada oo murugaysan ayaa meesha ka soo tagtay. waxaa ka soo daba cararaya Zumi, waxayna ku oranaysaa Yuko markii hore ayaan qaldanaa markii aan kula saaxiibay oo aan ku soo dhaweystay. Zumi waxay go'aan ku gaartay inay isaga tagtay magaalada wada mushkiladaha ah si ay u noqoto miyigii ay ku dhalatay oo haray uga timid. iskuulkii waxa ay ka maqnayd muddo isbuucyo ah. waxaa uga tagaya tuuladaas Nuura iyo Yuko oo wada socda, waxayna weydiinayaan maxaad u imaan weysay iskuulka. cunto ayay u diyaarisay. Zumo waxa ay raaligelinaysaa Yuko, waxayna ku leedahay waan ka raaligelinayaa inaan u soo dhawaaday Nuura, ma ogeyn inaad saaxiib la tahay oo aad jeceshahay. kadib markii la gaaray habeenkii, Zumo waxa ay ka soo baxaysaa qolkeedii. waxa ay bannaanka ku arkaysaa Nuura oo soo jeeda. waxa ay weydiinaysaa maxaad la soo jeedaa. waxa uuna ku oranayaa waxaan ka fikirayaa arrimo badan. Nuura waa uu raaligelinayaa, waxa uuna leeyahay waan ka raaligelinayaa wixii aan kugu sameeyay kadib markii uu ku soo diiday macalin Shima. aniguna aan ku sheegtay dareenkayga, adiguna imaadan aqbalin, waayo waxa aan moodayay inaanu isku dareennahay. waxa uuna ka codsanayaa inay dib ugu soo noqoto iskuulka. iyaduna halkaa ayay ku aqbashay inay dib ugu soo laabato iskuulkii. markii ay ku soo laabatay dugsiga waqti fara badan kadib, waxa ay dib u kulmeen macalinkeedii. waxa uuna isku dayay inuu la hadlo, waxaase si lama filaan halkaas soo galay Nuura. waxa uuna ku yiri aniga iyo Zumo ayaa hadda xiriir leh, waa inaad ka fogaataa gabadhani isla markaana aad ka dheeraataa. kadib waxa ay ka soo wada baxeen iskuulka. Nuura waxa uu qabsanayaa gacanta Zumi. dhammaan gabdhihii iskuulka wada dhiganayay waxay u maleeyeen in xiriir dhaba uu ka dhaxeeyo. Nuura Zumi waxa uu ka codsanayaa inuu u raaco beerta, waa ina aqbashay iyagoo si wada jir ah u aaday beerta malayga. mar kale ayuu u soo bandhigay jaceylkiisa, isagoo u sheegay inuu aad u jecel yahay. subaxii markii la gaaray, Zumo waxa ay tagtay guriga Nuura iyadoo u sheegaysa in ay jeceshahay isla markaana ay ka aqbashay jaceylkii uu u soo bandhigtay. balse waxa ay ku oranaysaa qalbigii waxa wili ku jira macalin Shima, waan isku dayi doonaa in aan ku jeclaado oo isagana aan iska iloobo. isaguna waxa uu ku oranayaa waan ku dareemi karaa waxa tahay qof hadda lagu soo daadiyay, shaki ayaana kugu jira, balse waxaan ku ballan qaadayaa inaan garabkaaga taagnaa had iyo jeer. waxaa la gaaray xilligii tartanka la galayay iskuulka. macalin Shima iyo Nuura ayaa tartan galay.
tartankii waxaa ku guulaystay nuura. Zumo waxa ay telefoon kula hadashay adeerkeed waxa ayna doonaysay inay asxaabteeda geyso maqaayadda, balse waxa uu u sheegay inuu ku jiro isbitaal isla markaana uu la joogo macalinkeedii uu shil galay. Zumo oo aad u murugaysan waxa uu maanayaa nuura, waxa uuna weydiinayaa maxaa kugu dhacay, waxayna u sheegtay in macalin Shima uu shil galay haddana uu ku jiro isbitaalka. Kadib nuura aad ayuu u xanaaqay, waxa uuna ku oranayaa weligay aniga maalin kaliya ima aadan jeclaan, waxa had ii jeer jeceshahay macalin Shima, markasta waxaan isku dayaa inaan kuu soo dhawaado. Orodoo hadda bax u tag macalin Shima, hana ka soo laaban, weligaana ha ii soo laaban. Zumo waa ay soo baxday si ay u tagto isbitaalka. Markii ay isbitaalka tagtay waxa ay la kulantay macalin Shima, waxa uuna ku yiri anigu wax shil ah ma gelin, balse waxa aan kugu yeeray si aan kuula kulmo isla markaana aan kuu sheego inaan ku jeclahay. iyaduna waxa ay ku oranaysaa anigu aan joojiyay inaan ku jeclaado kadib markii aad igu tiri ma doonayo inaan ku jeclaado maadaama aan macalinkaaga ahay. hadda anigu waxaan jeclahay qof kale. waa ay ka soo tagtay intaas kadib macalin Shima waxa ay ku soo laabatay nuura, waxa uuna ku yiri uma maleyneen inaad dib igu soo laabo doonto, ma rajaynaynin in jaceylkayga aad aqbali doonto. waxayna ku tiri adiga ayaa sidaas moodaya, aniga markasta adiga ayaan ku jeclahay, nolosha inta ka dhimana adiga agtaada ayaan ku dhamaysan doonaa. aad ayuu nuura arrinkaas uga farxay. noloshoodiina intaa kadib waa ay midoobeen, waxayna ku noolaayeen nolol farxad leh. filimkeennii halkaas ayuu ku soo dhammaaday. haddii aad ka heshay daawade fadlan page-kan subscribe inoo saar.